wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland mudane Cabdullaahi Maxamed Xasan maamulka jaamacadda Badda Cas ganacsato maamulayaasha dugsiyada sare ee magaalada Boosaaso iyo mas'uuliyiin kale ayaa xariga ka jaray laabka kuliyadda culuumta kombiyuutarka ee jaamacadda Badda Cas ugu horreynna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda jaamacadda Dr. Faysal Maaxiye ayaa sheegay laabkan cusub iyo ahmiyadda uu u leeyahay jaamacadda iyo ardayda wax ka barata ladan aan ugu talagalnay in aan ku daafurno laabka IT-ga oo dabcan jaamacaddu Badda Cas ay ku soo kordhisay qaybaheeda waxbarashada dabcan sida ka muuqato kaleeto laabkan aad aragtaan waxaan isleenahay waa laab aan u diyaarinay in looga faa'iideeyo ardayda wax ka barata jaamacadda Badda Cas si gaar ahaan kuliyadda computer science-ka sidoo kale si guud in uu ka qayb qaato tayeynta waxbarashada oo ardayda kale kuliyadaha kala dhigta ay ugu muhiimsan yihiin طبعا كلية قيبت حسابات كأ وطبعا إيادنا براكتيكال كو قادم دونتا إيه كلية ده كلا جامعة ده سيدا أتكور قبطان جامعة بدأ عص سنة كان وحياة بدن أو إسبدل له يكسو كردسي جامعة ده وجومهم سيئين لسمو سيجارة لو جود كلية الشريعة ده كوتشرت لاب كعافيمات كواسيا عن حركة جرنا أسبوع كهر يهدأ أمانة عن أوجوجنا إن عن دافورنا لاب كأيتيجا إن شاء الله waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay raado in aad nagala qayb qaadataan furitaanka laabka in aad nagala qayb qaadataan waxaan rabnaa marka in fariin aan halkan uga dirno dhammaan maamulayaasha iskuulada si gaar aan uga dirno sidoo kale shirkadaha ganacsiga oo dabcan ku shaqeeya tiknoolajiyada ku shaqeeya in aan fariin u dirno laabkan insha Allah hadduu Ilaahay raado waxyaabaha u furan yahay waxa kamid ah in looga faa'iideeyo ardayda dugsiga sare qayb ay ka tahay oo maamulayaasha insha Allah hadduu Ilaahay raado maanta waxaan u ballan qaadaynaa annagoo si guud dabcan maamulka jaamacadda iyo golaha sare jaamacadda ee isku waafaqeen in halkan looga faa'iideyn karo ardayda ICT-ga lagu baro dugsiyada sare waad uga faa'iideyn kartaan insha Allah gudoomiyaha golaha sare ee jaamacadda ayaa dhankiisa tilmaamay in qorshahoodu yahay kobcinta aqoonta iyo xirfadda ardayda jaamacadda Badda Cas qaabka waxbarashada Soomaaliya loo isticmaalo waa qaab kale yiraahdo xifdiga adduunkana waa laga gudbay xifdi in qofku wax la xifdsiiyo wax laga dhaadhiciyo hadhowna la weydiiyo imtixaan laga qaado la yiraahdo بالامتحان كواحد حفظ سنتها الشيخ هذا مركو شيء الامتحان كواد بس توي جود بتي شهادة قاضو أدونك سيدا كمار مرة وبرشة أدونك أنا ولا جود بي قاب كلا روين لو جود بوا محي وإسكيل بيسك قف كان حرفة ملايه مهمة شهادة نقاط مهمة حتى جامعة كقدر نجيب مهمة دوا محي قف كان حرفة ملايه هدو كمبيوتر ساينس هاي هدو بيرة هي معنا قفر سمك عيستا وحال يسكون دافع وحرفة ها waxaa muhiim ah marka jaamacaduhu inay soo saaraan dad xirfad leh maamulayaasha dugsiyada sare iyo martida kale ee lagu casumay daahfurka laabkan ayaa dhankooda bogaadiyay koowaad waxa u mahad celinaya bahda jaamacadda Badda Cas oo ku guuleysatay barnaamijkan weyn oo mustaqbaliga ah oo runtii baahidiisa ay taagnayd qodobada halkan ay ka jeediyeen akhyaartii ka hadashay ee maamulka jaamacadda iyo injineerkii fikradda lahaaba waxay ahaayeen baahiyo taagan baahidii aadka ii taabatay waxay ahayd ardayda iskoolada sare barta oo aanan haysan labs ay ku practice gareeyaan maadada ICT-ga haddii aan dhanka technology-ga u leexdo adduunka maanta waxa la isku haga waxa weeye sida akhyaartu sheegeen waa technology shakhsi ahaan anigu waxaan ahay nin engineer oo technology-ga wax badan ku jira ilaa 13 sano golis engineer ka soo ah hadda marketing baan ka tirsanahay shirkad ka horeysa telecom ka mid ahaa dalkan wax ku bartay wax badanna ka og technology-ga iyo challenges-ka haysta waxaan u hambalyeynaa oo runtii aan ku faraxsanahay adeegan cusub ay keentay ay soo kordhisay oo laabka ah IT-da laabkiisa ah jaamacadda Badda Cas ee magaalada Boosaaso aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxaan leenahay waxay ahayd runtii himilo aad iyo aad muhiim u ah sida horeyna loo sheegay gudoomiyaha boorka jaamacadda madaxda jaamacadda oo kala duwaneyd ay tilmaameenna ay ahayd arrin ay ku taamayeen muddo in ay technology gareeyaan waxbarashada ka caalamkaas oo awooduhu ay dhankaas u sii bateen annagu hadda inaan teknolojiyadda aan ka isticmaalo TikTok dhalinyaradeenu ay akhlaaqda kaga sii fasahaado waxaan filayaa waxna qabta ma ahan ardayda marka jaamacadaha dhigta maanta fursadda u helay qalabkan iyo teknolojiyadan cusub waxaan filayaa inaysan la mustawa noqonaynin dadka caamada ah iyagu ku wareeray baraha bulshada iyo adeegsiga teknolojiyadda
ugu dambayna wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa bogaadiyay horumarka jaamacadda iyo kor u qaadida xirfadda iyo tayada aqoonta ardayda. waxaan ka shaqaynaynay beriga inaan raahno dugsiyada waxaan rabnaa inaan kombiyuutar ku qalabayno si tiknoolajiyada maadaama uu manhajka ka mid yahay ICT-gu dayrinka oo dhan waa bahri waxbarashada tiin waad garanaysaan maadaama uu ka mid yahay waliba manhajkuna ma qornayn hadda falilahi alxamdu manhajku waa inoo qoran yahay soo ma baan waxaan raadin jirnay inaan raahno ICT-gii waa ku jira manhajkii sidaas darteed wuxuu u baahan yahay ardaygu theory-gan practice inuu arko buu u baahan yahay aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waliba offerka ay jaamacaddu ay bixisay oo ay yiraahdeen kaligeeyo isticmaali mayna laabkane xataa ardayda dugsiyada sare waa ku casuman yihiin inay ka faa'iideystaan runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa dabcan wixii beriga aan raadinaynay ee aan lahayn ha lagu qalabeeyo waxbarashada tiknoolajiyada tanaan arkaynay in la raadiyo waxa laga yaabaa dadka qaarkiis beriga inay lahaayeen moodayeen wasiirku meelahaas iyo dhulkii tiknoolajiyadu ka yimi oo wuxuu rabaa wuxuu u fikirayaa mentalitigii xagga yaalay buu u fikirayaa oo wasiir ka suurageli mayso dalka laakiin maanta markhaanti nool waxaa inoo ah jaamacadda badda cas oo hirgelisay laabkan ayaa qayb ka ah 3 mashruuc oo kala ah laabka kuliyadda culuumta caafimaadka dhismaha cusub ee kuliyadda shareecada iyo qaanuunka oo dhammaan laga hirgeliyay jaamacadda sanad waxbarasheedkan maxamed muuse qaal sahal cable TV Boosaaso ma ogtahay macmil in akoonka Sayfin akoon oo kamid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees Sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam